السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحنا توم جيمر برو اوفيشال. أصحابته waxaan leeyahay maanta waxaan idin wadaa video ka gedisan videoyadii hore. Sidaa darteed asxaabta channel subscribe saara haddii aan subscribe hore u odhan like tan ku qabto videona si share garaya. Asxaabta maanta cashkeenu waxa uu ku saabsan yahay waa maxay sababta ay fanaaniintu heeso soo qaadaan iyagoo dhintay ama se iyagoo adduunkan aan kor saarnayn oo imika funky ku dhex jirin. asxaabta horta laba weys ayaa jira labadaas waxa weeyaan fanaaniinta Soomaalida iyo kuwa ajaanibka mid ayay ku kala duwan yihiin. Kuwa ajaanibka marka ay dhintaan heesahooda waa la sii maqmaqlaa oo lagu qaylaa meelahaas laga sii dhagdhageystaa, laakiin marka ay dhintaan heesa kala dib uma soo qaadi karaan oo taas xirfadeeda lama laha. Balse fanaaniinta ajaanibta taas xirfad ay u leeyihiin waxa ay dalbanayaan marka koowaad waxa ay share la galayaan shirkad music features ah. kadib waxa ay ku oranayaan shirkadahaas waxay ku leeyihiin lacago aad iyo aad u tiro badan. Lacagahaas ayaa ay music ay hore u qaadeen ama heesooda hip hop ah ayaa ay kayd ahaan u dhiganayaan. Fanaanka ajaanibka maanta wuxuu soo saaraa laba heesood saddex heesood markaasi heesihiisii kaydka ahaa ayaa uu shirkadda u dhiibanaya. kadib saas ayaa uu marka uu dhinto heesaha kaydka ayaa balance ama background kale loo sameeyaa ama maslaxyo kale soo qaaday ayaa la soo gelinayaa oo musical ah. sidaas ayaa uu fanaanka isagoo dhintay heeso music ayaa ku soo qaadaya. Asxaabta mid kale ayaa isweydiinaysa waa maxay sababta uu hadaba fanaanku isagoo dhintay u soo qaadayo heeso muuqaal. Asxaabta marka hore ee fanaanku uu nool yahay horaantiisa ayaa wax laga duubi karaa image ama se sawiro isaga oo heesaya. kadib albumka waa loo dhigayaa marka uu dhinto isagoo beeleysa ama se dhul kale ka heesaya iyo isagoo background kale la isticmaalayo visual effect ayaa la soo saaraya heeso muuqaal oo fanaanka ku heesayo. asxaabtaasina waa sida loo soo saaro uu fanaanku soo saaro heeso musical isagoo video isagoo dhintay. mid kale ayaa jirta oo ay shirkadu isticmaalaan midka kale waxa weeyaan fanaaniinta imika oo kale extentation waa dinkooga wuxuu dhintay beer hore haddana fanaaniinka oo soo saara heeso kale dark ayaa kamid ah raga heeso imika ama future saa u taqaaniin waxa uu soo saaraa heeso cusub. Tupac maalmo ka hor waxa uu soo saaray heeso cusub sidaas darteed waxa ay u adeegsadeen visual effect qof loo ekaysiyo qofkii dhintay oo maaskiisa xiran iyo ama design idin soo sheegay labada ways ah ama inta muusikiisa kaydka la soo qaadaya hees lagu dul qabanaya ama balance-ga la bedelaya ama background-ki waxa laga dhigayaa inuu fanaanka heesayo isagoo dhintay. Marka asxaabta waxaan u maleynayaa inaad fahanteen casharkaas oo xiisayn doontaan. Wassalaamu calaykum warahmatullahi.